labada kun iyo 18 waxaan daafuray saldhigiina laga siiyay dawladda Puntland khaasatan gobolka Karkaar qardho caasimadiisa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan shacab weynaha reer Puntland waxaan u mahad celinayaa dawladda markaan ka warramo ciidamada halkan aanu ku tababarano ee saldhigiina laga siiyay iyo kaymaatinkii jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka bilaabantay cadaalad darro la yaab leh waxa ka bilaabantay dulmi ummadda dawladda loo yahay maaha laba qolo maaha oo ummadaad u badan waxay degtaa 6 gobol waxa ku nool ummada fara badan markii aan ka dhex arki waayay cadaalad rasmi markii aan ka dhex arki waayay dawlad loo siman yahay markii aan ka dhex arki waayay horumar ballaaran oo ummaddu u siman tahay waxaan go'aansaday inaan saldhig weydiisto Puntland si aan u suuliyo dulmiga markaan hoos u dhaadhaco waxaan ka mid ahaa dawladda waxaan ahaa korneyl sare ciidamada qaranka hatta alaanag waxaan ahay Soomaaliland waxaan suulinayaa sida rasmiga markaan idin sheego cadaalad darrada iyo dulmiga waan soo taagnahay agoomo ku dhintay dalka xaq u leh xuquuq ku leh waxaan arkay laban agoon oo iska soo horjeedo midna xuquuqda qaadanayo midna aanu qaadan halkaas ka arki kartaan cadaalad darrada ka jirta markaad eegto madaxweynaha generaalka ciidanka maxkamadda sare fulinta wuxuba waa isku reer waxa la isku darsaday maxay waxa la isku darsaday waxa la isla og yahay waxa arkaysaa dhiijiyo isku mid ah taliya saldhig ilaa iyo isu duwe cid qura laga sameeyo sidaa markaad u eegto waxaad arkaysaa gobolka Sool dagaalkii waa ka dhamaan waay nation baa degan waxa degan ummad fara badan degaankayga ka mid ah degaankaygu gobolka Sanaag ilaa Sool ayuu xiriiriyaa dadka halka tumanna waxay ka kooban yihiin Soomaaliland Sool iyo Sanaag jabhadu waxay ka bilaabmi doontaa 6 gobolba qof kasta oo xuquuqdiisa iyo aamin darrada iyo nolol darrada iyo biyo la'aanta ka dagaalamaya gobolkiisu ka dagaalami doona haddii alla iyo ciidamaduna gudaha ay ku jiraan